qisooyinkii iyo sheekooyinkii Juxa. Maalin ayaa Juxa isagoo dameerkiisa saaran nin ayaa damcay inuu yeeso Juxa, markaasuu ku yiri war Juxow adigaba kuma aan garteen ee dameerkaaga ayaan gartay. Juxan waxa uu ugu jawaabay oo caadi oo dameeruhu iyagu unba is yaqaana oo iskarta. Maalin kale ayuu Juxa fuulay mimbarkii masjidka maadaama uu ahaa nin xikmad iyo murti badan lahaa. Markaasuu dadkii ku yidhi ma garanaysaan waxa aan idiin sheegayo? Markaasaa loogu jawaabay maya. Markaasuu intuu mimbarka iskaga degay yidhi maxaa laga faa'iidayaa haddii iidaan garanayn waxa aan idiin sheegayo? Maalintii dambe ayuu fuulay isla mimbarkii masjidka, markaasuu yidhi war ma garanaysaan waxa idiin sheegayo maanta? Markaasay markan ku yidhaahdeen haa. Isla sidii mimbarkii ayuu iskaga degay, waxauna ku yidhi marba haddii aad garanaysaan waxa aan idiin sheegayo, maxay faa'iido leedahay inaan idiin sheego? Maalintii saddexaad ay dadkii go'aansadeen haddii uu su'aashan mar dambe uu weydiiyo Juxa inay isqabsadaan, barna haa yiraahdaan barka kalena maya ay yiraahdaan, sidii caadada ahaydna markii uu mimbarkii soo istaagay ee ku yidhi ma garanaysaan waxa aan idiin sheegayo, ay barna haa yiraahdeen barkii kalena maya ay yiraahdeen. Mimbarkii ayuu iskaga degay sidii caadada u ahayd, waxa uuna ku yidhi kiina og kiina aan ogeyn ha u sheego oo ha ogeysiiyo.